waa digniin ku socota bulshada Soomaaliyeed hay'adda caalamiga ah ee wargeliso una doodo xuquuqda macaamiisha ee loo yaqaan Consumer Reports kana diiwaan gashan dalka Mareykanka ayaa waxay daabacday warbixin argagax leh isbuucii la soo dhaafay iyadoo sheegtay caanaha gasacadaha ku jira ee dhallaanka la siiyo qaar badan oo kamid ah in laga helay curiyayaasha macdanta ee halista ku ah caafimaadka sida maadooyinka arsenic, lead, PPA, acrylamide iyo PFAS. curiyayaashan oo haddii jirka ku bataan waxyeello joogto ah u geysan karo maskaxda iyo jirka carruurta. hay'addan waxay baaritaan shaybaar ah ku sameysay 41 nooc caanaha gasacadaha ku jira ee carruurta la siiyo waxayna sheegeen in ka badan 22 caano inay halis ku yihiin carruurta laakiin ma aysan magacaabin shirkadahaas waxayna warbixintaas u gudbiyeen hay'adda FDA oo ballan qaaday inay dabagal ku sameyn doonto. Ogow, caanaha la baaray waa kuwa lagu dhaxgada dalka Mareykanka, marka maxaad u malaynaysaa kuwa dalalkeena la keeno? tani waxay xoojinaysaa fariinteena ahayd in la joojiyo carruurta markay dhashaan masaasadaha lagula ordo sabab la'aan oo caanaha gasacadaha lagu bilaabo. fadlan cunuga nuuji ilaa 2 sano uu ka gaarayo 4 bilood oo ugu horeysana caanaha naaska ayaa ku filan wixii ka dambeeyana fadlan caanaha xoolaha u karkari oo si faafi fariintan waana mahadsantahay.